gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari iyo wafdi ballaaran oo hogaaminayo ayaa ka soo degay madaarka caalamiga Entebbe Airport ee magaalada Kampala ee xarunta waddanka Uganda iyadoo ay madaarka ku soo dhaweeyeen safiirka Soomaaliya u fadhiya dawladda Soomaaliya dalkan Uganda gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Soomaaliya Mahad Cismaan Caawed oo saxaafadda la hadlay ayaa ka warbixiyay ujeedka socdaalka isagoo sheegay inay casuumada ka heleen baarlamaanka dalkan Uganda maalinta berri ay la kulmayaan baarlamaanka waddanka Uganda isla mar ahaantaana ay kulamo la yeelayaan jaaliyadda Soomaalida ku dhaqan waddanka Uganda qaybaheeda kala duwan inaan maanta aan joogno dalka Uganda caasimadiisa Kampala wafdi uu hogaaminayo gudoomiyaha golaha shacabka oo ay ka mid yihiin xildhibaano Soomaaliyeed oo ballaaran waxaana safarkan aan u nimid casuumaad rasmi ah oo aan ka helnay gudoomiyaha baarlamaanka Uganda oo aan halkan qorshaha ugu weyn uu yahay in aan heshiis rasmi ah ay ku wada galaan labada gole ee baarlamaan ee dalalka walaalaha ah ee Soomaaliya iyo Uganda oo uu xiriir aad iyo aad u qoto dheer ka dhaxeeyo heshiiskaasi mid horay loo soo diyaariyay weeye oo ay xogayaasha guud ee labada baarlamaan ay horay u soo qoreen imikana diyaar u ah in ay labada gudoomiye saxiixaan haddii uu ilaahay yiraahdo berrito ayuu saxiixaasi dhici doonaa kadib waxaa noo qorshaysan kulamo gaargaar ah oo ay xildhibaanadu la yeelan doonaan xildhibaanada golahan waxaa dhici doonta inaan jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkan aanu guud ahaan la kulanno gaar ahaan waxaan aad u xiisaynaynaa ardayda Soomaaliyeed dalkan arday Soomaaliyeed oo fara badan ayaa ka dhigata jaamacado iyagana inaanu la kulanno oo aanu aragtidooda iyo dareenkooda aanu qaadno labada baarlamaan ayaa wada qorshe la xiriira sidii loo mataanayn lahaa baarlamaanada dawladda Soomaaliya iyo dawladda waddanka Uganda Iglan Saalax على التلفزيون كعالمي كالسن TV Kampala